Ma ogtahay in calaaqad adag ay ka dhaxayso daryeelka maqaarkaaga iyo sidoo kale caafimaadka maskaxda? Mar walba oo maqaarkaaga caafimaad qabo, mar walba ay kalsoonidaada kordho, sidoo kalena aad dareento farxad, kaana yaraato waxyaabaha walwalka iyo stresska. Waxaa jirto warbixin ay sameysay kambaniga loo yaqaano InStyle. Warbixintaas ay sameeyeen waxay ku soo bandhigeen in ay sameeyeen cilmi baaris lagu sameeyey dumar badan, taasi oo ka dhalatay inta ugu badan percentage-ka ugu badan dumarkaasi in ay laga report gareeyay in mar walbo ay dareemaan maqaarkooda in uu wanaagsan yahay ama caafimaad qabo, mar walbo oo caafimaadka maskaxdoodana uu wanaagsan yahay. Ka waran haddii aan ku dhaho subax walba marka aad wajiga dhaqayso waxay qayb weyn ka qaadataa in moodkaagu uu wanaagsanaado, maadaama mar walba wajiga la dhaqo blood flow-ga uu maqaarka ku badanayo, waxaa ka dhalanaya in la soo deeyo maadooyinka loo yaqaano endorphins-ka iyo sidoo kale serotonin-ka, kuwaasi oo qayb weyn ka qaato farxadda qofka. Haddaba ha yareysan tilaabooyin yaryar oo aad ku daryeelayso maqaarkaaga, kuwaasi oo kala ka dhalan doono in aad ka hesho caafimaadka maskaxdaada inay wanaagsanaato. Sidoo kale maqaarka waa xubinta ugu weyn jirkaaga, sidoo kalena waxay mudan tahay maamuus gooni ah iyo sidoo kale daryeel. Ku bilow steebo yaryar kuwaasi oo ku daryeelayso maqaarkaaga, sidoo kalena kor ugu qaadi doonto caafimaadka maskaxdaada. Waa mahadsantihiin.